قلب وناكسن السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعينه على أمور الدنيا، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام يا دمان، أنت مقعي موقعي تقانبة. سلامة المسلمك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة يليبان بوله إيوه جنرك يوتيوب وبالله ما أنتم حقوا سوق قادم دومنا برنامج كوفيد 19. waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan uga digo cudurka Covid 19 waa cudur halis ah isla ahaantaasna dilaa ah. waxaan ku jirnaa waqti aad iyo aad u adag, waqti aad taf u ah. marka waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan kula dardaarmayaa inay iska ilaaliyaan meelaha kaloodka ah ama lagu badan yahay, inay ka dheeraadaan meelaha buuqa ama dadka ay ku badan yihiin, inay isticmaalaan maaskiga ay xirtaan mar walbana inay macnaha 6 feet ay u jirsadaan qofka kale. waxaan aad iyo aad u farayaa mar kale dadka waayeelka ah ee Soomaaliyeed ee hooyooyinka iyo aabayaasha u badan, fadlan ayaga aad iyo aad ha looga taxadaro, sababtoo ah waxaa laga yaabaa badankood inay qabaan pre-health conditions ama cudurro kale inay weheliyaan sida dhiigkar, macaan, cholesterol ama wadne xanuun ama neef. haddii dadkaas cudurkan ku dhaco waxay halis u yihiin inay waayaan ama ay loosgalayaan naftooda. fadlan haddaan waayeelka u taxadari karna aan u taxadarno, annagana aan iska ilaalino isdhexgalka badan, sababtoo ah cudurkan waa cudur halis ah sida hellfire micnaha u fidaaya. annaga hadda waxaan ku jirnaa Franklin County level 4, waxaa laga yaabaa inaan gaarno level 5. governorka wuxuu sheegayay ilaa Fridayda in uu restaurantiyada maqaayadaha meel walba uu xiri doono, 10 o'clockna uu banduu soo rogi doono. maskigana jaa hore shalay waxaa laga dhigay statekeena mandatory qof walba inuu xirto. waana arrin runtii bulshada Soomaaliyeed ama mujtamaca Soomaaliyeed inay isku guuriyaan ama ay isu sheegaan ay muhiim tahay, sababtoo ah waa wax ku saabsan caafimaadkeena. adduunka waxaa ugu qaalisan qof kasta oo adduunka nool wax ugu qaalisan u haysto waa caafimaadka. haddii caafimaadka aweysid waxba ma tihid. marka walaalayaalow waxaan mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad idin kula dardaarmayaa nafteyda iyo naftiina iyo naf kasta oo jirtaba inaad ka taxadirtaan, maaska qaadataan, 6 feet distance aad samaysaan. haddii aad issoo tijaabin kartid ama test aad kasoo qaadi kartidna 2 week iska soo qaad si aad dadka kale u ilaalisid ama dadka kale aad uga dheeraatid. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.